qolkiisa ayuu saaq ku galay waxaana kamarada hotelka Xaaji Ibraahim muujinaysa inuu furaha oo kaliya ka qaatay reception-ka kadibna uu toos u galay qolkiisa qolka waxa loogu tagay baaskooladii marxuumka oo qashar ku go'an yahay iyo meedka oo agtaala meedka marxuumka sida uu cadeeyay madaxa baaristu in marxuumkaas ay sabab u noqotay baaskooladaas oo ku qaraxday sida daraadeed kiiska waxa ku soo gabagabeynay aan u gudbinay xeelaliyaha guud ee ciidamada qaranka marka waxa soo dhaqray conclusion oo dambeeya si ay soo gabagabeysay waxay soo cadeeyeen inaan u soo bixin cid ka dambeysay dilka marxuumku ee sababtaas noqotay baaskooladiisa oo gacantiisu sababtay inay qarxiso saan u geerooday maadaama ay ka tahay marka baarista si qoto dheer u findhicelinay aanu cid walba su'aalo weydiinay sharcigiina la tashanay waxa noo cadaatay in marxuumkaas geeridiisa ay sababtay baaskooladiisa isagu cadeeyay kaabkana qabtay kuna qaraxday waxaana dhaqaatiirtu cadeeyeen in marxuumku uu geeriyooday xabad kaga dhacday afka oo madaxa jajabisay wax yeelaysay maskaxda waxaana laga soo saaray gumicii oo ah nooca ka dhaca baaskoolada marxuumka dul taalay kiiska arintaasi baarista ciidanka CID soo ay sheegeen ee halka ka akhriyeen taliyaha iyo madaxa baarista iyo xeeraalintuba waanu ku qanacsanahay waxaan ooday maanta taariikhu tahay 9 bishii 9aad 2025 bismillaahir rahmaanir rahiim 6 bishii September 2025 baaro 11 iyo barkiisa ayuu xafiiskan hoggaanka baarista dambiyada soo gaaray warka dheelada la sheegay dhimashada marxuum Axmed Maxamed Xuseen oo loo yaqaan Axmed Cadib marxuumku uu ku geeriyooday qolka 204 ee hotelka uu ka deganaa Xaaji Ibraahim oo ku yaala degmada Gacan Libaax waxaanu hawlgelinay markii warkaasina soo gaaray dambi baarayaasha goob dambiyeedka iyo baarayaasha kiiskan waxaana goobtaas ka soo ururiyeen cadeymo wax ku ool ah waxaana run ahaantii baarista caawisay kamarada tayale oo ku xidhnaa hotelkaas iyo goobta oo ahayd mid bad qabtay oo ciidanku ku gaadheen si bad qab ah iyo wax kharibaad ah halka waxay ciidanku ka soo ururiyeen ciidanka dambi baaristu cadeymo tayale cadeymahaas oo nagu hogaamiyay gabagaba halkan laga sheegi doono ay ku go'aan qaadan doono xeeraliyaha guud ee ciidamada oo kale fadhiya marxuumku sidii falku dhacay hadii aan ka sheekayno wax yar ka hor intii aanu furanin qolkiisa 8:51 minid oo ah xilliga uu furtay qolkaas wax yar ka hor wuxuu hotelka Dalsan ka soo qaatay baastoolad halka u taalay baastooladaas waxa ku soo wareejiyay reception-ka hotel Dalsan marxaati goob joogahay wuxuu sheegay marxuumku inuu goobtaas ku soo cabeeyay baaskooladiisa kadibna uu ku ciriiriyay oo galiyay boorso yar oo dhinaca u sudhnayd marxuumku sidaas ayuu ku yimid baaskoolada oo cabaysan amaankana uu xidhay oo uu ku riday boorsada qolkiisa ayuu saaq ku galay waxaana kamarada hotelka Xaaji Ibraahim muujinaysa inuu furaha oo kaliya ka qaatay reception-ka kadibna uu toos u galay qolkiisa qolka waxa haysa kamaradaas oo si fiican u haysa muuqaalkeeduna oo kaleer yahay qolkaana sidoo u furay dibcid ugama soo bixin isna kama soo bixin cid kale ma gelin waxaanu ka soo xidhay hoosta ilaa lagu jabiyay 11kii maalinimo ee dambe meedkiisana halka lagu tagay qolka waxa loogu tagay baaskooladii marxuumka oo qashar ku go'an yahay iyo meedka oo agtaala meedka marxuumka iyo boorsadii uu ku soo qaaday baaskooladaasi ku jirtay oo iyana agtaala oo u muuqatay inuu marxuumku waqtigaas isku dayay inuu baaskoolada ka saaro boorsadii uu ku soo qaaday waxaana baarista noogu cadaatay qolkaas in marxuumku keligii ku sugnaa hoostana uu uga xidhnaa cid kale oo qolkaas joogtayna aanay jirin oo ku sugnayd sidaana xabadu ay kaga baxday baaskooladiisa
oo ay ku dhacday marxuumka waxaana dhaqaatiirtu cadeeyeen in marxuumku uu geeriyooday xabad kaga dhacday afka oo madaxa jajabisay wax yeelaysay maskaxda waxaana laga soo saaray gumicii oo ah nooca ka dhaca baaskoolada maxbuus marxuumka dul taalay ee goobta loogu tagay oo qasharkiina ku go'naa marxuumku waxa lagu ogaaday eheladiisa ayaa markii uu telefoonka qaban waayay qolka ku garaacay waxaana ogaadeen inuu qolka ka dhex dhacayo telefoonkiisa kadib waxay go'aansadeen inay qolka ku jabiyaan iyagoo markaa tashaday oo go'aankaas dhexdooda qaatay waxaanay qolka ugu tageen furihii oo hoosta kaga soo jira iyadoo maamulka hoteelkuna la joogo markaa kadib ayaa booliiska la soo wargeliyay waxaanay booliisku ku gaadheen goobta ehelada marxuumka oo ilaalinaya meydka oo saas ku jooga qolka hortiisa wax farafareen halkaas aan lagu samaynin meydka iyo goobtii dambiga midna furihiina wuxuu kaga taagnaa hoosta furihii marxuumku ku xidhayna albaabka ayuu hoosta kaga taagnaa qolku ma lahayn wax calaamad ah iyo goob laga soo galay midna uu bad qabay qolka daaqadiisu dushuna sagbad bay ahayd sidaas darteed markii aanu la fagurnay dhammaan cadeymihii laga soo ururiyay goobta dambiga iyo muuqaaladii hotel xaaji ibraahim